waxaan wada daawanaynaa xiriir ka bilowday oo la iska bartay social media oona keenay in la is arko welibana uu sii dheeraado oona u dhaxeeya labadani qofood. Kow gabadhan oo aad arki kartaan hadda da'deedu inay tahay 23 sano iyo ninkan aad arki kartaan isna da'diisu ay tahay 54 sano. Waa xilliga muuqaalkan qaybtiisii ugu horeysay la sameynayay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب شرفت بدن سود هذا مركل يكسر هذا مقال كله لكن صاحب كنا اسمه سوي كنا كهوسو برو وكما سنتين مقال كأنت دعوانا سام وقت يجيكم بعين إنسان سد مقال كأولا جرينا سام شير جرينا إنسان ولي بشانل كأت سبسكرايب جرينا إنسان وحن هذا نسوون معنا قيبتي حكتي إيش كذا ينسوتي وحنا إنه مريسي نينكي أضيق أها ولا سوق حي معرفت مركزي لبرايو فملكا قبلي صاحبة دي ساعد صفر كدر وصوق علي إيروس أوكي. But she doesn't like my beard. Because I don't beard. يعني جركاga waa dhibsaday dhaadi. Oh. Come on. Sure. Go. You like my face now? Yeah. Better? Garka laga soo xiiri markaa iye. Ow. I'm scared. Ninkii odayga ahaa waxaa la keenay gabadhii meesha ay deganeed. Waa iska xaafad jaban meesha ay ool joogeen meel hotel iyo wax lay ahayd laakiin gabadhii xaafadeeda la keenay. We arrived at Rose's village and I'm looking around going, oh my God, this is where Rose lives. I'll introduce you to my family. This my girl. Oh my God. Oh. Wiilkii yaraa loo keenay. You know who I am? Can I give a hug? Can I get a hug? Oh. Hi. Very happy. How are you? You're so cute. Oh my God, you're so cute. Daddy. Daddy. Oh. Daddy Allah. If I propose to Rose, I'm a father again at 54. wali marka canugan yani waa inaan hab siiyay oo daddy leeyahay oo faraxsanahay laakiin qayb kale aniga iga mid ah aan naxsan oo leeyahay macnaha inaan hadii aan ma aragtay Rose aan guursado in aniga mar kale da'da 54 jir hadana wiil yar oo 4 jir ah aan aabe u noqdo. So where? Here, my sister with my home. It's awkward meeting Rose's sister Maria because we have this secret. You know, she asked me for money. Ayay marka gabadhii ayada la dhalatay ayaa maaragtay markaasi uu la kulmaya hadda oo xaafadda ayada ugu soo horeyso dukaan meesha ku leedahay wuxuu yiri waana ceebsanayaa u dhahay si ay u qaab daran tahay in aan gabadhaas la kulmo because lacag weydiisay u dhahay macnaha mana ogi in oo de isla ogiin in kale ninkan shakiisu badan yahay. Hello, how are you? Nice to meet you. Maria. Very nice to meet you. Ngayon nakita ko si Ed ng personal, mas maliit siya sa akin. Saka yung medyo mataba nga siya. ayadana la video call kay kala jirtay moogtahay gabadhan waxay tiri qofkaan arki jiray qofkaan way kala duwan yihiin ee dhahday markaan waa uu caylan yahay oo hadana uu aad u gaaban yahay. And this is your store. Yes. Yeah, I've seen this on video when we chat. gabadha marka oo walaasha markay lacagta weydiinaysa ninkan waxay tiri store-kayga yani maaragtay dukaankayga ka cirabo oo maaragtay dawaan qasaari rabaa inaan isku caawiyaan rabaa lacagtaasi si markii dukaankan waayo kabaha ay ku gado. Okay. Okay. Family. Yes, my family, my sisters. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Mother-in-law of Rose. And very nice to meet you. What do you think of my home? What do you think? Well, What do you say? where are the windows? Big windows. That's not. guriga soo aragtay alla markaas uu leeyahay ayay waa daaqadii daaqadaha kor waayay dhaaday macnaha xagaasna wuxuu leeyahay daaqad ma aan waxaan meel kor iska furan waay. It's all open up above. And they don't really have a front door. It's just a kind of a curtain of paper CD covers. guriga sharaca wuxuu leeyahay marka albaab hore ma qabaan macnaha wax oo daah oo laga dhigay warqado la isku dhajiyo waay macnaha wax daah u ahba. I expected it to be, pretty bad, but this is really bad. So what do we do? No, we can. That's it, okay. Here, and where are you gonna sit here? Yeah, okay, in your side. So, where's your dad? aabihii uu weydiiyey marka wuxuu yiri aabihii uu soo daahayaa la yiri laakiin yani waa uu soo socdaa. Maybe something to drink. Are you guys thirsty? Ito big may Coca-Cola daw ba kayo diyan? Yeah. Oh wow, is this your hello? Dito ka. Dito ka. Hi. Hello, hi. How are you? Fine. Nice to meet you. Yes, nice to meet you.
adiga aabaheed waa kana gabadha. Come here, chicken. 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 So, Freddie, are you okay with me dating Rose because I'm 1 year older than you? wuxuu leeyahay macnaha okay makula tahay in gabadhaada aan sheekaysano aan isshukaansano anigana waxaan kaa weynayay 1 sano. Anong intention mo sa anak ko na pumunta ka rito? Why you intention with both us and my friends? Adag marka la weydiiyo wuxuu dhahay yani inuu serious yahay in kale inaa ogaado horta ugu muhiimsan oo dhahay su-aal haddana meesha fadhi ku weydiinaya wuxuu leeyahay macnaha adiga maxaa idinka dhaba macnaha ulijeedada aad ka leedahay oo mustaqbalkaad maxay tahay. I just want to, get to know her and no games and go from there. That's my plan. Thank you for inviting me into your home and into Rose's life. I'm still trying to find out whether or not Rose was involved with her sister asking me for money. ninkan wuxuu ka dhamaan layahay macnaha si fiican la iisoo casuumay oo gabadhiina iyo gurigiina bay igu casuumteen oo yiri waa ku mahadsantiin laakiin haddana intaas iyo dhan kadib waxaan weli rabaa inaan ogaado gabadha walaasheeda inay lacag weydiisay ayada may ku lug leedahay mise maya. Gusto daw niyang maligo. Sige, ako rin maliligo na. May dad say we want to shower too with you. marka aad soo baxdo oo aad timaado meel adiga ka dhaqan duwan waa sidaan oo kale mogtahay ninka wuxuu yiri waan kululaaday de waa nin iska cayilano meeshan waa kulayl wuxuu yiri inaan qubaystaan rabaa markaas waxa la meesha anaga isla qubaysanaay ay aabe ma la qubaysanay mana diidi kare mogtahay la gabadha ma ka xanaaqda uu isleeyahay ayuu dhahay Brother, now? Yeah. Okay, sure. Okay. Yeah. Okay. Tara pa. And it's shock. But it's normal to my family to take a wash together. macnaha ninka qoorgaab uu nacsan yahay laakiin waxay dhahday anaga ahaan caadi naga tahay dhahday inaan isla qubaysano familkeena isla qubaystaa. Put out. Take this out. Okay, what do we do? Oh my God. Whoa. Nice. This has to be the weirdest experience of my life. wuxuu leeyahay wixii igu xubaa nolosheeda aan la kulmo waa waxaan I feel mouse. That's a mouse or a rat? gawiisa dowlad dul saaran u cararay. I cannot wait to get out of here, so I'm going to make hotel reservations as soon as possible. meeshaan aan ka tagayo oo dhahay nin hoteelaa qabsanayo oo dhahay saama ku noolaan karo laakiin wuxuu dhahay aabba inaan marka hore weydiiyey waayo dhahay si oo ixtiraam ku jiro in gabadha maaragta dee ii sheeg adiga in aniga aan meel kale aan tago ama gabadha ay raacdo sababtoo aniga aabbaan ahay taas oo kale aan rajeynaya in oo la isiiyo odayga markaa wuxuu ka shaqeeyaa adiga meel oo doonfaarada lagu xanaanayo ma garanayo inuu isaga leeyahay in kale. I think the baggies are making me more slipperier. I'm sorry. Are you okay? I'm fine. gawiisa waxaa lagu xiray macnaha bac si oo dhiiqada looga ilaaliyo meeshan waa dhiiqa markaa uu ku sibxanaya marka sibxashadaas isagana waxaa la rabaa markaa isagoo gawiisan ilaalinayo inuu doofaarkii maaragtay uu baxsiyaa la rabo xayawaankii meesha ku jiray isagana oo dhacaya. So, Rose, where does your dad live? Here. Here inside. aabi intuu ku nool yahay oo dhahay meeshaan uu degan yahay la aabi. We pig. Does he like living here? Yeah. Gusto mo ba daw pa nandito ka? Yes, yes. He said yes or no. okay marka wuxuu dhahay xalay aniga meeshani inta aan joogay aad iyo aad maaragtay ugu laaday oo dhahay waana seexan waaye marka adigaan ku weydiin lahaa ayuu dhahay haddii aad ma ogolaanayso in gabadhaada yani vacation aan qaadano hotel aan soo degno oo dhahay marka gabadheena waxay leedahay waan ka naxsanahay aabahay inuu tan oo okay dhahayo in kale haye Alagaan mo siya ng ano. Yeah. okay marka aabi okay uu yiri wuxuu dhahay yani iska taxadira on inta kale waa okay haye. Thank you. Thank you so much. Okay. Okay, let's go.
ليه meeshan waxaa u imaadaan in Rose guursado laakiin xaaladda familkeedii wax sida ay meesha ka jirto markii aan arko wuxuu dhahay waqti kale inaan la sii qaataan u baahana intaan farteeda faraanti gelin okay hotelkii maaragtay ninka waxa uu weydiistay wuxuu yiri miiska ugu romanticsan meesha sida aad u sameyn kartaan hal looga dhigo gabadhii iyo isaga si ay waqti u soo wada qaataan meeshana loo diyaariyay marka Oh my God. The restaurant killed it. I didn't even tell you how beautiful maxaa la ka socda meesha Thank you. I feel happy. I feel love because we bonding into each other. I want Ed part of my life. okay gabadhiina waaba waxay dhahday yani jecel aan dareemaya ay dhahday ninkan inuu nolosheeda qayb ka mid ah uu noqdaan rabaa So I wish that he proposed to me this night. So what? waxaan rajeynayaa ay leedahay ayada laftirkeeda waxay dareensan tahay inuu caawa maaragtay oo farantiga ii gelsho waaye What do you want? I want someone that loves me, that won't ever leave me, that respects me. Do you want that with me? No. I mean, I think so, but I'm not 100% sure. iyadoo ay soo furfuraysay markaas waxay tiri ay maxaa rabtaa wuxuu yiri waxaan rabaa qof aniga i jecel oo i ixtiraamayo oo i taageerayo oo aanan iga tegin markaas waxay tiri yani okay qofkaas marka aniga ma iga rabtaa inuu noqdo de hadduu haa iska dhihi lahaa waxba kama halaabi leena mugti adiga inuu maaragtay uu isla laabo keenay odaygu wuxuu leeyahay macnaha haa waan jeclaan lahaa laakiin 100% ma hubo ayadan isla markii sida arkartaan haddii wejigeedu uu soo bedelay I love Rose, but there's one thing that's holding me back, and that is whether or not Rose was involved with her sister asking me for money. Pishinka odaygan odayga wuxuu leeyahay aniga waa jeclahay oo dhahay Rose aan dhan ilaan u sameynayay laakiin waxa gadaal ay dhigayuu yiri oo aan ka shaki qabaa in Rose ay walaasheeda ay kula lug leedahay inay lacag i weydiiso taas ilaa hadda way ka dhamaan laadahay odayga markii inuu toos u weydiino ma rabo inuu taas uu ka jaahil baxan uu rabaa Can I explain after dinner? Can we eat first and I'll explain? maxaa 100% ugu hubiyeysay dhahday inuu u sheego rabay hadana wuxuu dhahay marka hore wax ma cuni karnaa gaajaysa umarayna saacadan wuxuu isleeyahay buuq furminay horta cashay caloosha xag shufrikaas kadib la sheekada I want you to tell me now. aha wafti indhaha shidad waxay dhahday haddaan rabaa ay dhahay haddii kale wax ma qaniinaysid I feel hurts and I feel sad and I want to hear my sister's side of that story. ay gabadhii marka wuu u sheegay sheekadii wuu u sheegay waana laga jaray anaga wuu u sheegay gabadhii ayada waxay leedahay marka aniga waan maaragtay dhaawacan dareemayaa in isaga uu u maleynayo in sida walaasheeda oo kale marka walaasheena waxay tiri dhankeeda ayadan ka hubinayaa in sheekadu ay ka saxan tahay marka waan ka xumahay ay dhahday in sida walaasheeda aad ii maleyso in aniga lacag ka rabo oo aan jacayl ka rabin haye Yeah, I know. Okay, I believe you. Okay, I believe you. You promise? I promise. odayga dadka sabasho galay wuxuu leeyahay aniga hadda waxa igu taagnaa waan kuu sheegay laakiin hadda waan ku aaminay markii hore waan shakiyay u dhahay in adiga aad ku lug leedahay laakiin hadda 100% waan u baahaye balan miya ay tan meel laga saaray Can you and I speak to her together? It's important to me. okay marka ninka aad wuxuu yiri yani markii hore waan shakiyay laakiin hadda qalbiyan waan aaminsanahay in ay daacad ka tahay marka wuxuu yiri marka walaasha maxaa ka sameeynayna hadda markaas ay tiri ma la hadlaya isagana wuxuu yiri asxaan ku weydiistaa ha aan la wada hadalno macnaha kaliya la hadlin ayadana way ka ogolaatay I love him and I want to be a wife with Ed. waan ogahay walaasha saacadan xilligan la joogo inay maaragtay ay lacag ay u baahan tahay oo dhibtoonayso laakiin waxay dhahdeen ninkan kama rabo lacag waxaan ka rabaa inaan xaaskiisa noqdo bal meesha ku dambayso out of this relationship? And with 2 babies with you. waxaa dhahay xiriirkan adiga maxaa ka rabtaa markaas waxay dhahday xiriirkan ma saxsan waa ogahay laakiin waxaan ka rabaa inaan family xoogan dhisno oo jacayl leh iyo wiilkayga lagu daray iyo 2 cunug adiga ah maaragtay de aan wada dhalno indhuhu taagay adiga laan cunug mara wuu dhahay I don't want more kids. I'm not sure how she's going to feel about that. I'm freaking out again. odayga mid oo xalinaya mid kale haddana u imaanaysa haddana xabsi u bilaabay wuxuu yiri taas haddana ka cabsanaya haddana ilmo halanba ka baqaya labay keentay uu dhahay
kadib marka waxay sameeyeen vacation yaroo meel daanyari iyo joogaan odayga xitaa mooskiisiyaa laga dafay marka maalintii kale hoteelka ilaan arrintii oo ilmaha ku taagneede maxaa dhacay And when I woke up this morning, she was gone. wuxuu dhahay xalay waxaan u sheegay Rose in ilma aanan rabin aniga inaan ilma dhalo inaanan rabin saaka markii aan soo kacay wuxuu dhahay wayba tagtay maba jooginba taleefanadeedna ma qabanayso wuxuu dhahay mana heli karo I'm really worried. odayga waa dhibtay gabadhani dalku ka raajay meel walbuu ka raajay marka waxaa u saaran lama heli karo waa u imaatay I'm just worried about you. haye marka wixii xalay ay dhahday inaan ka fikir darteeda space u qaatay ay dhahday si aan keligay u soo ahaado haye Having kids. Yeah. You want kids. Yeah, I want kids because that's my dream. ay waxay dhahday marka aniga dhaawacan dareemayaa sababtoo ah dee dhowr mar aan u sheegay in aniga aan baby rabo oo riyadeedaaba sidaas ah marka hore maxay igu sheegaysaa leedahay Why you not tell me the truth? You not want a baby? inta imaan maxay igu sheegaysaa Why? What's wrong? Because I'm 54 years old. I don't want more kids. aniga 54 jir ahay oo dhahay ilmo kalena hadda ma sii rabo ayadana maxaa runta igu sheegi weyday haye I wanted you to see who I am. I know who you are. haye ninkii waa lahayaa markaan waxay leedahay adiga waxay dhahday sidaada beenaalaa tahay waxa been iga sheegtay ay dhahday dhirirkaaga waan kugu qaatay ayay mouthwash geeda oo ilkaa lagu cadaystaa keentay ay dhahday macnaha soo baar oo maaragtay testi soo sameeya ugu dhahday intaas iyo dhan yani waxay cadeynaysaa qofka adiga aad tahay dhahday marka qofka adiga aad tahay maxaa marka hore suukay sheegi weyday haddana markii hore ilmo marabi midhiin haddaa la soo taaganta Yeah. You think I want your money, not you? mid xitaa walaasheeda lagu daray ay dhahday saas camal aniga ii malaynaysaa in aniga lacagtaada aan rabo adiga ku rabin gacanuu ku jiraa ninkan I'm done. qof yaraa bay iga dhigtaa ay dhahday macnaa wax yar oo noloshaada ka mid ah isiisaaba adiga maba i jeclida u malaynaa waan noo kala dhamaatay ay dhahday hayayay sidee noqonaysaa marka sheekadan talow